bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo National TV idin hayo qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah mooshin xilka looga qaadayo madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo ka socda magaalada Garowe wararkii ugu dambeeyay shir degdeg ah oo la isugu yeeray baarlamaanka Puntland ayaad warkeena ku daawan doontaan xiisad culus oo ka taagan magaalada Beledweyne kadib markii kuraas uu ku jiro midka xildhibaan Jeeso la diiday in la qabto doorashadiisa xaaladda Beledweyne oo caawa kacsan iyo warar ku saabsan ayaan eegi doonaa wararkeena kalena waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo taageeraya xildhibaan mucaarad ku ahaan jiray haddaba maxay tahay sababta ku qasabtay warar ayaan idin kaga hayaa doorashadii ugu adkayd oo ka dhacaysa magaalada Gaalkacyo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo doonaya inuu soo saaro wasiir ka tirsan xukuumaddiisa haddaba Rooble iyo Guuleed ma ku guuleysan doonaan inay xildhibaan odoba ka tuuraan kursiga Hob Eber 69 wararkeena ayaad ku daawan doontaan qodobadaasi iyo kuba kale ayaan faahfaahin doonaa waa habeen Arbaca ah Khamiis ayaa soo galaysa 9 Maarch sanadka 2022 haddaad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararkan halkan soo dhigna aad u hesho haddaad aragtidaada noo reebto waan kaaga mahad celinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi warar soo baxaya ayaa sheegaya in mooshin laga diyaarinayo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni taasi oo lagu codsanayo inuu xilka baneeyo macluumaadka aan helayno ayaa sheegaya in 17 xildhibaan oo kamid ah baarlamaanka Puntland ay diyaariyeen warqad looga dalbanayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil in uu furo kala fadhi aan caadi ahayn tani ayaa laga warhelay saacada ka hor waxaana miiska saaran mooshin ka dhan ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ujeedka xildhibaanada ay kala fadhiga u dalbanayaan ayaa ah in ay soo gudbiyaan mooshinka ay saxiixeen 25 xildhibaan kaas oo lagu codsanayo in madaxweyne Deni uu iscasilo ka hor inta uusan ku dhawaaqin murashaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya ee 2022 qorshaha xildhibaanadan ayaa waxa ka dambeeya sidaan xogta ku helnay siyaasiyiin iyo ururo reer Puntland ah isla markaana cadaadis iyo meel cidla ah in la soo istaajiyo la raba madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo shalay dib ugu laabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu arintani ku wajahayo maadaama markii hore uu fududeystay arinkaasi balse xaaladdu ay sii cakirantay bila ka hor ayaa la ogaaday in Siciid Deni uu doonayo inuu xilka madaxtinimada Soomaaliya isku soo taago si uu u hor istaago dib u doorashada madaxweyne Farmaajo hase ahaatee waxaa muuqanaysa in jawiga uu ka bedelmay sidii uu rabay oo mawjad cusub ayaa isaga lagu furay xilkiisana lagu qasbaya inuu ka dego ka hor inta uusan issharaxin lama saadaalin karo go'aanka uu qaadan doono Siciid Deni ase yeeshee xildhibaanada ka soo baxay Puntland ee labada aqal ayaa waxa gacanta ku haya Siciid Deni oo codka meesha uu rabo kaliya geyn doono doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waayahay qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa qoraal ay caawa soo saareen waxay ku hakiyeen in la qabto doorashada 3 kursi oo deegaan doorashadoodu taalo magaalada Beledweyne kuraastaasi waxay kala yihiin Hob Eber 10 Hob Eber 30 iyo Hob Eber 66 kuwaas oo la filayay in doorashadooda biri lagu qabto caasimadda Hiiraan ee Beledweyne xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa ku fadhiya kursiga sumadiisu tahay Hob Eber 30 waana loo xiray kursigaasi sida aan xogo ku helnay iyadoo la soo tabinayo in guddiga doorashada heer federaal ay suurta ku sameeyeen in 3daasi kursi la qabto doorashadooda gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal Soomaaliya Abukaate Mawlid Salaad Mataan ayaa isagu ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana uu qabtay shir jaraa'id oo aan loo fasaxin warbaahinta shirkan jaraa'id ayuu ku sheegay gudoomiye Mawlid in aysan raali ka ahayn shakhsiyaad gaar ah in doorashada loo xiro hase ahaatee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka xumaaday in guddiga ay faragelin qaawan ku sameeyaan doorashada la qabanayo gudoomiyaha guddiga siid ee Hirshabeelle Axmed Xasan Diini ayaa sheegay in doorashada ay qaban doonaan oo aysan awood u lahayn guddiga doorashada heer federaal inay farageliyaan hawsha doorashada socota xiisad kacsanaan ah ayaa caawa ka jirta magaalada Beledweyne sida aan wararka ku helayno dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Beledweyne
oo ka dhashay hakinta 3 kursi oo midkood uu ku fadhiyay xildhibaan Jindi balse nin kale oo lagu magacaabo Guray loo xiray. madaxda Hirshabeelle ayaa ku fashilmay in doorashada beledweyne xakameeyaan xilli maalin ka hor dagaal dhiig ku daatay uu ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle ee ku taala beledweyne. maleeshiyaad qaabeeleed u abaabulan ayaa ku sugan magaalada beledweyne isla markaana diidan in Villa Soomaaliya ay dad gaar ah u xirto kuraasta doorashadooda lagu qabanayo magaaladaasi. waayahay madaxtooyada Soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa in la soo saaro xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba si looga hortago damaca injineer Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. kursiga sumadiisu tahay Hoob Eber 69 ayaa sabtida soo socota sida qorshuhu yahay la soo dooran doona deegaan doorashadiisuna waa magaalada Gaalkacyo. kursigan waxa 5 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba oo lagu xasuusto mucaaradnimadiisii tooska ahayd ee nabad iyo nolol u muujin jiray. hadda kursiga Odoba waxa ra'iisul wasaare Rooble uu la rabaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo xukuumaddiisa ka tirsan balse Villa Soomaaliya ayaa Odoba taageeraysa si Al-Cadaala meesha loogu diido. ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qayb ka ah qorshaha lagu soo saari lahaa Cabdiraxmaan Al-Cadaala. hase yeeshee Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo ayaa dad gaar ah u xil saaray in la taageero Cabdiraxmaan Odoba. inkastoo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor uu sheegay in kursiga Odoba ku fadhiyay uu yahay mid furan balse la leeyahay Odoba inuu soo baxo ayay u badan tahay. Villa Soomaaliya ayaa la isweydiiyay waxa xilligan ku soo beegay taageero u sameynta xildhibaan Odoba oo mucaarad ku ahaa habmaamulkooda. hase ahaatee danteeda gaarka ah ayaa ah in Rooble la dhabarjibiyo sidaasna looga adkaado xildhibaan Cabdiraxmaan Al-Cadaala. dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa xalay shaaciyay qabashada doorashada 3 kursi oo kamid ah 6 kursi ee ku hartay magaalada Gaalkacyo. 3 kursi ee la shaaciyay waxa ku jira kursiga sida weyn isha loogu wada hayo ee Hoob Eber 69. kursigan waxaa ku fadhiya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba waxaana sanadkan tartan kula jira wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. labada nin marka qabiilka dhexdiisa la joogo waxaa la fahamsan yahay inuu Odoba haysto garaado dheeri ah laakiin Odoba oo ka tirsan xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wajahayaa sanadkan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed. labadaasi nin waxay 100% xoog iyo dhaqaale gelinayaan in Al-Cadaala la siiyo kursiga. Rooble waxa la sheegay inuu Qoorqoor ku cadaadinayo in kursiga loo xiro Al-Cadaala laakiin taasi waxa la sheegay in dhanka Qoorqoor aysan weli ka gadmin. Cabdikariin Guuleed isaga waxa u sawiran in Al-Cadaala uu wax badan ka tari karo ololihiisa doorashada haddii uu kursiga soo helo iyadoo ay jirto in waayahan dambe duruuf siyaasadeed oo u dhaxaysay Guuleed iyo Odoba. labadan hogaamiye ee Guuleed iyo Rooble waxaa laga yaabaa in kiiskan cadaawad badan ku abuurtaan oo dhanka jamaahiirta mucaaradka ah maadaama Odoba uu ku jiro xildhibaanada ugu shacbiyada badan dhanka mucaaradka. Al-Cadaala isaga mucaaradka waxaa kaga dhow Odoba muxaafadkiina waxay ku kala tageen habkii uu u maareeyay warbaahinta dawladda. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor oo ay toddobaadkan Rooble iyo Guuleed uga adkaadeen kursigii Hoob Eber 60 lama oga sidii uu mar labaad ku aqbali doono inay kursi labaad ka faramaroojiyaan. kursigan Hoob Eber 69 kuma jiro kuraasta laga leeyahay magaalada Gaalkacyo mana jiro culays saaran. Qoorqoor wuxuu awoodaa inuu xilli hore go'aan ka gaaro dhinaca uu aadayo kursiga. kooxda ra'iisul wasaare Rooble ayaa baxsad uguma ahan in tartan furan laga dhigo kursigan maadaama ay ka dhareegsan yihiin halka uu jiro miisaanka iyo dareenka qabiilka kursiga iskale. laakiin haddii uu Qoorqoor diido inuu kursiga u xiro Al-Cadaala waxa macquul ah inay tartan caadi ah aqbalaan ayay leeyihiin dadka la socda xaalka kursigan. Cabdiraxmaan Odoba isaga waxa laga soo xigtay inuu wax ka sugayo diiwaankiisa wanaagsan. Qoorqoor oo ay mar hore ka heshiiyeen kala aragti duwanaantii siyaasadda iyo odayaasha iskale kursigan. xubno ka tirsan musharaxiinta mucaaradka ganacsato iyo dad badan oo Galmudug macno markaasi ku leh ayaa la soo wariyay inay Qoorqoor ka codsadeen inuu Odoba siiyo kursiga.
axmed qoorqoor weli go'aan kama gaarin kursigan labada nin ee Odowa iyo Alcadaala mid walba rajo ayaa u muuqata. waxaa jihada qoorqoor iyo qofka uu rabo inuu siiyo kursiga la fahmi doonaa marka uu soo magacaabo guddiga soo xulaya ergada kursigan. kooxda madaxweyne Farmaajo ayaa kursigan wax aragti ah ka lahayn maadaama labada nin aysan cod ka heli doonin oo la sii og yahay qaanadaha ay ku kala jiraan. sidoo kale kooxda waaya arag oo inta badan talo ku leh go'aamada qoorqoor ayaa laga soo xigtay inay loolanka kursigan dhexdhexaad ka yihiin oo aanay qofna la safanayn. hadda waxaa la eegayaa haddii ay ra'iisul wasaare Roble iyo murashax guuleed ku guuleysan doonaan inay Odowa dhaafiyaan kursigan ama haddii uu axmed qoorqoor iska diidi doono inuu jihadaasi aado. halkaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV oo aad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. inta ku kulmayno wararkeena soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.